وتليها عيدن كدرويش مع وسليد الدنبل إيرير بقرطوي إلى تلية السيد عثمان حاجي اللو قرن أوجه تلية كعربين waxa uu ku jira howshiisa shaqo ee maalinlaha ah waxa uu kala diriyaa ciidankiisa si ay u soo hubiyaan xindaabka deegaanka oo ay maamulaan kaasi oo ay hore ugu ceerabtireen argagixisada gaaljecel ee naflacaariyaasha taliyaha ayaa u sheegaya ciidankiisa in ay u adeegaan qaranka iyo shacabka ilaaliyaan xasilinta deegaanka oo ay gacanta ku hayaan oo aysan marnaba u nixin argagixiyo kasta oo ay qabtaan ama ay arkaan argagixisada gaaljecel ee aan lahayn awood ay goobahooda ku xajistaan ama ku xakameystaan kuna hoyda godadada sida doonfaarka iyo unfada taagta daran ayaa ah kuwa ku caanbaxay gaadmada kuwaasi oo aanan ku sugnaan karin deegaankooda dagaal foolka fool ahna aan kala hortagi karin ciidanka sida gaarka u tababaran ee dhimbil ee uu hogaamiyo taliyaha Cismaan Xaaji Mursal loo garan og yahay taliyaha Kaarabin ayaa lagu sheegaa inuu yahay nin naxariis badan oo shacabka u tura u naxa hasa ahaatee markii ay tagto la kulanka argagixisada gaaljecel ee naflacaariyaasha ayaan qorin wax naxariis ah yaqaanana sida loo burburiyo agab kasta oo ay wataan naflacaariyaasha gaaljecel ee gaadmada ku sifoobay taliyahan afgaabnida badan haystana ciidan ay ka go'an tahay ilaalinta iyo xasilinta deegaanka ay maamulaan ayaa mar walba aaminsan in aysan naflacaariyaasha gaaljecel ee awoodoodu tahay in ay sida unfada iyo doonfaarka taagta daran ay ku hoydaan godadada aysan lahayn awood ay kula hor yimaadaan ciidanka dhimbil ee uu maamulo taliyaha Kaarabin qof kasta oo Soomaaliya in shaqada may buu khawaarijin rugda arki diloy ay dhaafna insha Allah kulunkaana dambe iyo guul insha Allah ilaahay na ka rajayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh